السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي ولد الكلمة وبتكسكتين سلام الله عليكم. ما أنت ومالين جمعية وحنا لله هاي قف ولبا هون معنا هون نقطة جمعة دي وكل بال إن شاء الله تعالى. من وبتكسكتين سلام الله عليكم إن شاء الله تعالى. هدي الجنال كأسب تفضل سبسكرايب صار لايك دي شير دي كومنت كسب حسين الله تنوان إن شاء الله تعالى. مرة ما دي مسلحات الله يحفظه إن شاء الله تعالى. الوحى آد يا دعوة فرح سناي يوتيوبر وين oo magaciisa la yiraahdo Watwa Mr. Watwa inuu islaamay uu shahaado qaato الحمد لله شكرا على التصوير إلهي نعمديس لكن وحن نصيب درير وآد ياد أن أبو حماي دد الله سبحانه وتعالى ونعمي وكسر إحسان بيئة مسلمين إن أي دينتي كان قنايان أو أي قانايان كريستان أما الدين المسيحية ولا ريالو هنوك عدو إلهي لدور أي إلهي هنونينيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقتو الله كله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مركز الكاس وهذا الحقيقة أو صحن إن الله نقول هديه هنوكنا الله نقوله دينتنا الله نومعي إن شاء الله تعالى وعد أركيزا قف عن بيئة إسلامية كل إحنا لنين أو إلهي كصدق بعين أي إلهي هنوننا وهداية تسنة حق أو تسنة إلهي قلنا حديثنا كي إسلام كل سنة الواردين تيس أي أسوأ مسلمة كسر بحي أو إلهي كسر صارنا ودينتي كلامنايو أما ودينتيسي لولا جعم وكقرصنين حلي جنو جرو حلي آدي آدحون وحلي إن هذستيسي ولا لكن وعلى ما إن لو أتكستو إن جاجرة لو أتكست دبعتها إن محمد عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المسلم وجنة الكافر معناها الدنيا وحبس يقفك مؤمن كها جنة لو قالوا هي وتاي جنة ومعنى بس واحد دونان أي سمين كران marka qofka muslimka dib walba uu ku sugan yahay dhibaato walba uu ku sugan yahay xaqiiqatan waxa ay hadii diinta dhadhankeeda iyo macaanteeda uu arko oo xaqiiqada ashhadu an la ilaha illa allah mar yaqiinteeda qalbiga uu degto uu raaxaysanaya diintu uu mixaysanaya taas waa xaqiiqa laakiin hadii ay marka hore galab iska meel laga soo galo badan oo dulduleelo badan ayaa diyaanaysaa adigoo walba salaadaadu galab ay dadkaas gacanta ku dhigaan waxa macquul ah inay umrigan inta ka dhiman ay ku dhumiyaan marka walaalo gacaliye diintaada labada gacan ku qabso waxa naga dardaaran meel walba joogto caruurtaada ka warqab tarbiyadooda ugu waxay suubinayaan ugu dadka ay la socdaan ugu walaalo gacaliye walaalka muslimka oo wiilkaaga ama gabadhaada hadii ay baadiyoodo wallahi dimbiga waxa ku leeyahay adiga dhul gaalakii marka waa gacalisi adiga aad u badbaado dad dalkoodii ku soo celi hadii aad mar aad ka dareento talaabooyin khaldan taasi waa xaqiiqatan hadii aad rabto inaad badbaado waan ku baryayaa caruurtaada ha ku deynin dadka ama bii'adaas dhuusan dhexdooda ciyaalkaaga soo qabo ku soo celi wadankoodii hooyo taas waxay keeni karaan bi'ad islaam ah oo diinkaas gacmooda ku haysto in ay la kulmaan diintana ay ku baraarugaan ayaa macquul adiga hadda galabgalabta caruurtaada galabgalab ayay noqonaysaa walaalo gacaliya allah subxaanahu wa tacaala kaba adduunka wax la joogayo waa wax yar caruurta ugu mas-uul nabi maxamed wuxuu dhaha kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raaciyati that's why aan ku dhahayo mas-uuliyadda aday ku saarantaa wallah ciyaalkaaga haddii ay baadiyoobaan oo adiga aad sabab u naqatid dembiga waxbaad ku leedahay dadka walaalahaaga u baahan kelmadda laa ilaaha illa allah muxamad rasuulullah inaad gaarsiisa isku day kuwa dhunsanaya inaad la hadashid oo waxa uu sheegtid waa maasantiin mar labaad mar saddexaad fadlan haddii janaalkeena uu qanciyay like saar waad maasan tahay mar labaad mar saddexaad walaalkaygii maalin wanaagsan